ururka lixaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa howlgalla ka sameeyey tuulada buurfiiqow oo hoos tagta deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellaha dhexe. ciidanka ayaa intii howlgalku socday waxay burburiyeen goobo ay gabaad ka dhiganayeen khawaarijta al-shabaab. sidoo kale ciidanku waxay duqeeyeen goobo ay isku aruursanayeen khawaarijta ururka al-shabaab, halkaasi oo jab xooggan lagu gaarsiiyey sida warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha ururka lixaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka laba xidigle axmed maxamed salaad oo howlgalka hogaaminayey. maleeshiyaadka ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo ku dhuumeelaysanaya duleedka deegaanka daarunimca oo ay weerarka ku qaadeen ciidanka kumaandooska danab ayaa bishii lasoo dhaafay dab qabadsiiyey masjidka deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellaha dhexe. taliyaha ururka lixaad ee ciidanka kumaandooska danab axmed maxamed salaad ayaa waxauu sheegay inay sii wadayaan beegsiga khawaarijta al-shabaab tan iyo inta dalka laga saarayo. howlgalka ciidanka ay ka fuliyeen duleedka deegaanka daarunimca ayaa qayb ka ah wejiga labaad ee dalka looga ciribtirayo khawaarijta al-shabaab. maxamed socdaal, warbaahinta codka ciidanka shabeellaha dhexe, daarunimca.